الله وبركاته وحنو لجوجنا قويسكي أفر إيا كنتونات وقت حاضر كان وقبدي برنامجكي نافكاب برنامج كان وحافلنا إياه قبلها أرجع نافذة أنا قبلها أرجع نافذة تفبلين جيراليس sidoo kale waxaan maalgelisay mu'asasada khayriga ee Al-Nur Charity ee fadhigeedu dalka Qatar waxaan la joognaa maama Fardoos waxay haysataa laba wiil oo cagaha naafaka ah maama Fardoos waxaan u keenay raashinka noocyadiisa kala duwan sida gadbad bariis gadbad sunkara gadbad daqiiqa kartoon baasta kartoon timira taasad caana taasad sharaab iyo sidoo kale shan saliida maama Fardoos ma naga gudoontay raashinka aan ku keenay waan dika gudoomay walaalihii muxsiniinta ahay la soo baxayna halkii ka soo saareen ilaahay wax khayr leh ku bedel aad iyo aad baad u mahadsantahay maama Fardoos taas waxay ahayd gabagabadii ugu dambeysay ee barnaamijkii naafakaab uu ku soo gabagaboobay anaga oo ka bilownay laba gobol gobolka koobaad oo ah magaalada Burco iyo gobolka labaad oo hadda waqti xaadirkan ku dhex suganahay oo ah magaalada Hargeysa inta waxaan ugu soo gabagaboobay barnaamijkii naafakaab taasoo markasta naga gacan siiso mu'asasada khayriga ee Al-Nur Charity maamo Ifraax Maxamuud aad baan u salaaminaa waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran wa khayran jasaa ajri xasanaad Allah ku siiyo maama Sharaf adiga iyo tiimkaagaba waxaan ka codsanayaa walaalaha muxsiniinta meel kasta ay joogaan arinta khayriga aan wadno in sida maama Ifraax oo kale in garab nagu siiyo sida mu'asasada khayriga oo kale markasta waxaan u taaganahay naafada meel kasta naafaka tahay duu rabbi raali ka noqdo aad baan idin salaaminaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh